aad iyo aad baan idinkaa mahad celinayaa ustaad maxamed runtii waa ku mahadsan tahay allah ku barakeeyo wax badan waa kaa faa'iidaysan doonaa sidoo kale runtii golahan soo qaban qaabiyey runtii bandhig hore u qabtana waa aragnay runtii intii dad sukayana waa garanaynaa wax badanna waan ka filaynaa hadda runtiina aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaya dadaalkooda sidoo kale dadka kasoo qayb galay dadkana daawanayna ilaahay idinka waxaan rajaynayaa inay qayb ka qaataan si interactive ah la isweydiiyo waxaan anigu aan sheegayo oo waxa aragtinimo iyo waxaan soo akhriyay iyo waxaan la soo kulmay macnaheedu ma aha macnaha wax walba wax shaqaynaya mar walba ma aha laakiin waxaan u baahanahay interactive ah oo kale faa'iidaysi ah baan rajaynaya in loo dhigo haddii aan la yiraahdo wixii tabarteeda waan isku dayayaa ustaadii haddii aan isku dayo inaan sheer gareeyo haddaan isku dayo inaan sheer gareeyo allahu mustacaan isku dayaa inaan sheer gareeyo okay waa la arkaa waan filayaa aad iyo aad soo dhawaada sidii laga dhawaajiyey qaybo badan baan kasoo shaqaynay runtii ku saabsanaa arrimaha ku saabsan muxuu ahaa teknolojiyada iyo qaybahan managementiga shirkadan kasoo shaqeey qaybahaas ka mid ah sidoo kale shirkado badan aan samaynay way jirtaa qaar runtii haddii ku fashilmeen waxaa oran karna waa ka faa'iidaysanay khasaare ma ahayn dhanka trainingka shirkado badan baan ka qayb qaadanay localka iyo dibadda intaba qaybaha researchka aan samaynay ugu dambeeyey kan buu ahaa Ipsen Research Center sidoo kalena Ipsen UBS aan malaynaya dhawaan waa laga daawanaya TV-dan malaynaya sidoo kale qaybta hadda aan joogno aan samayno waxaa ka mid ah quality controlka oo ah macnaha xaruntii ugu horreysay quality control dadka laga sameeyo intaan ka ogahay haddii waa la yiraahdo wasan galayna howlaha iyaga waxaan rajaynayaa wixii marka interactive inuu yahay ciddii marka su'aal qabtay gacanta inay taagto oo la isweydiiyo haddii waa la yiraahdo haddaynu fiirino qaybta waxaan oran karnaa waa warshadda haddaad fiirisid mar walba waxay soo saarta wax soo saar bay leedahay waxaan rabaa dadkan isla fahanna marka hore dhalinyaradu ganacsiga iyo meeshuu ka soo uskumayo meeshuu ka imanayo xaggee weeyaan warshadda markaa fiirisid waxay leedahay product bay soo saartaa laakiin productiga waxaa ka horreeya warshadda waxay u baahan tahay mar walba inay hesho raw materialka warshadda u baahan tahay kow waa inuu hada raw materialka saxda ahaa haddii raw material ku habboonayn haddii la geliyo warshadda way istaagaysaa haddaan raw material la siinna way istaagaysaa marka productiga mar walba waxay ku xiran tahay raw materialka la siiyo sidoo kale warshadda ilaah bini'aadamka ku rakibay wax soo saar bay leedahay haddana iyadana la siin raw materialka ku habboon oo runtii information hadduusan helin maskaxdu shaqayn mayso ama information qaldan haddii la siiyo ama qofku waxyaala quraafa aad u aaminsan yahay waxyaala cilmi ku dhisnayn waxyaala macnaha diin iyo akhlaaq ku dhisnayn qofku uu dhaawacmaya uu dhibaatoonaya waxay ka muuqanaysaa runtii wax soo saarkiisa anuma inta waa isla fahno malaynaya haddaan ka gudbo sidoo kale intaan u gudbin qaybta la yiraahdo maxay tahay faa'iidada ku jirta SME-yada ama warshadaha yararka ama ganacsiga kale waxa yara wanaagsan oo isla fahno ganacsiga cid uu anfacayo qofka shakhsiga sameynaya kaliya ma aha wuxuu anfacayaa wadankii iyo qarankii iyo qofka meeshuu kasoo jeedo buu anfacaya tusaale haddaan isla fiirino in yar waxaan arkaynaa wadankan Malaysia waxaad arkaysaa boqolkiiba 99.2% waa shirkaduhu waa SME waa shirkado yaryar weeyaan weliba waa micro boqolkiiba 80 wadanka aad arkaysaa horumarka intaa la eg in ka badan 99 waa shirkada yararka weeyaan macnaha waa qof 10 qof 15 qof 20 qof wax loo gaaro waa micro ayuu wadanka moodaa in uu ku dhismay markaa fiirisid shirkadaha waaweyn wadan ku yaala waa 0.8% waa dareemi kartaa saamaynta ay ku leedahay dhalinyaradu markii ay ganacsi sameeyaan ama loo fududeeyo inay ganacsiga sameeyaan ama lagu tababaro ama la siiyo macnaha maalgelinta ku habboona faa'iido ayuu kaliya keenayaan wadanku dib ugu soo noqonaya sidoo kale haddaad fiirisan New Zealand waxaad arkaysaan 10kii shirkadood 10kii ganacsiba 9 ka mid ah waxaa ka shaqeeya in ka yar 10 qofood
tobankii shirkadood 9 ka mid ah waxaa ka shaqeeya in ka yar 10 qofood waa New Zealand haddaa fiirsan Japanka boqolkiiba 81% shaqooyinka Japanka waxaa sababa employment-ga keena waa shirkadaha yararka ah waa 81%. sidoo kale haddaynu eegno Germany runtii way ku faanaan way yiraahdaan middle class-ka shirkadaha yararka ah iyaga sabab u ah inay ka soo baxaan dhibka iyo rafaadka dagaalweynaha labaad ku yimid haddaad fiirisidna GDP-ga ama dakhliga soo gala dhaqaalaha soo gala Jarmalka boqolkiiba 50 wuxuu ka yimaadaa meel shirkadaha yararka ah marka meesha waxaynu ka fahmi karnaa inuusan ahayn arrinkan arrin fudud inuusan ahayn ganacsigu marka haddii la maalgeliyo oo dhalinyarada lagu dhiirigeliyo fursadda la siiyo qarankiiba dib ugu soo noqonaysa horumarku wuxuu ka dhex muuqanayaa sidoo kale haddaad fiirsan Canada halka waxaa ka muuqda waxaad arkaysaan shirkadaha smallka ah oo 1 ilaa 99 inta u dhaxaysa ah boqolkiiba 70 ku dhawaad way tirado percentage ahaan boqolkiiba 70 waa shirkada yaryarka ah hataa sidoo kale fiirsan waddankan Finland almost micna waxaa la oran karaa boqolkiiba 99 ku dhawaad aydan waa shirkada yararka ah weli waa micro yar shirkada aad u yar dakhligan haddaa fiirsan half ka badan waxay ka yimaadeen shirkada yararka weeyaan markaa fiirsan shirkada yararka faa'iido ku jira waa maxay qofkii shaqo u abuuraya shaqadii dadku markay shaqeeyaan canshuur bay soo geliyaan canshuur dib baa loogu celinaya adeegii bulshada waxbarashada iyo caafimaadka iyo ganacsiga halkaas uu ka imanaya marka waddanku qasab ma inuu shirkado weyn yeesho waxa ugu muhiimsan waa shirkada yaryarka iyo kobcinta aragtida ganacsiga marka intaas waxaan ugu balleeyahay ganacsiga dhalinyarada oo laga taageero oo lagu support gareeyo faa'iido weyn ay ku jirto waxa weeyaan waddankii baa ka faa'iidaya inta ayuu ka faa'iido ka sokow oo qoysaskii iyo faamiliyada iska faa'iido waddankii baa dib ugu faa'iido horumarka marka waa intaa weeyaan haddaynu dib ugu soo noqono qaybtan yara entrepreneurship muxuu yahay maxaase looga baahay waa maxay horta ta kale qofka intuusan oran waxaan rabaa inaan ganacsi noqdo ama ganacsi aan bilaabo sababta ku kalifaysa marka hore maxay tahay waa inay jirtaa baahi ku qasbaysa qofkii inuu fahmo dad baa iska jecel inay cid kale u shaqeeyaan dad baa jecel isagoo shaqeynaya inuu ganacsi sameeyo dadna wuxuu jecel yahay complete inuu ganacsi u soo jeesto ganacsiguna qasab ma aha qofka inuu bakhaariyo waxa ka shaqeeya xirfadda uu leeyahay hadduu macallin yahay hadduu yahay dhakhtar yahay hadduu farmashiiste yahay wax alla wuxuu yahay uu bedeli karaa ganacsi tusaale kale haddaynu fiirino maxaa ku kalifi karaa qofkii inuu ganacsado ama waay ugu baahaya ganacsiga aan isla fiirino jaantuskan waxaa laga yaabaa buugaag badan inaad ku aragteen laakiin iska soo qaadanaya in case haddaa fiirisaan hadda qofka bini'aadanka sidiisaba wuxuu isaga baahan yahay expenses baa jira qarashaad baa jira korontadii baa jirta raashinkii baa jira biyihii baa jira kiradii baa jira dadku micnaa mar walba qarashaad baa jira ku baxa oo saas oo qasab ku tahay qarashaadka wuxuu u baahan yahay income qofka marka aan shaqada aada oo subax walba sida qofka ka muuqda boorsada qofka subax walba shaqada aada income-ka wuxuu ka keenayaa qofka shaqo ku keenayaa income-kana wuxuu u isticmaalaya expenses-kiina waa garan kartaa marka waxa ka soo haraya hadhow qofka wuxuu ku jirayaa loopka bishii kale haddana wuxuu taagan yahay arrinka bishii kale wuxuu taagan yahay sidaas oo kale mar walba weli waxaa taagan baahidii waa inuu shaqadii aadaa waa inuu mushaar soo qaataa waa inuu ku bixiya expenses tan waxay keenaysaa marka arrinka sida hadduu yahay wax dhibaato ma laha laakiin waxaa dhici karta xaaladdu sida ahayd inay xaalad kale soo kororto qofka xaalad kale kusoo siyaadi kara arrin caafimaad kusoo siyaadi kara deymaa kusoo siyaadi kara uu cuslaan kara family ka weynaan kara meesha ka shaqaynaya nina expenseska badan kara expenseska soo kordhay xagee bay fuulaysaa marka qarashkii haddaa fiirisaan dib waxay u noqonaysaa qofkii shaqaalaha ahaa adigii shaqada adigu mushaarkaaga unbay fuulaysaa culayskii markaa fiirisa marka income-kii expenses-kii buu aadayaa ilaa alla wixii soo kordha oo dhan waxay noqonaysaa mushaarkaagii aad aadi jirtay inaad ka bixisid sidoo kale waxay noqonaysaa haddana haddii marka haddana culayska sii bato waxay noqonaysaa dad qaar fadhi inuu yaraado inuu shaqada iguma filo waa inaan shaqo kale ku daraa shaqadii labaad iguma filo waa inaan 3 gila shaqeeya halkaas waxay ka bilaabanayaan qofkii runtii culaysan caadi ahayn inuu fuulo waana dhibka ay leedahay markii micraa muxuu ahaa qofka uu yahay qof marba ku xisaabtama inuu mushaar meel ka qaato kan waxaa la yiraahdaa marka active income weeyaan waxa ku soo gala waxay ku xiran tahay dhididkaaga adigii baa shaqaynaya adigii baa jarmaadaya haddaa xanuunsatid iyo haddii dhib kale ku soo gaaro culayskaas micnaha waxaa weeye culays jiro buu ahaanaya haddii culayso kale ay soo kordhana sidaas oo kale marka waa active income waxaa weeyaan kaaga baahan activity joogta inaad qabatid
rat race baa la yiraahdaa waxa weeye mar walba qofka halka taagan runtii waxa lagu matalaa buwaagta mina waa employer-kii wuxuu ka faa'iideysanayaa mar walba wuxuu ka faa'iideysanayaa micnaha baahidaada joogtada ah haddii aad fiirisi marka doodo badan oo laga sameeyaa jira muxuu yahay farqi ugu dhexeeya qofkii slave-ka aan xorka ahayn iyo qofkii employee-ga qasam ma inaan isku waafaqno laakiin mabda'iyan isla fiirino qofkaena xorriyadda haysan ama xilliyadii horeba hadda waayaan ma jiro dabcan slave action uu qaadi karo ama uu samayn karo isagoo permission haysan ma jiro qofkii employee-ga oo sidoo kale shaqo uu ka maqnaan karo ama micnaha maqnaasho uu samayn karo isagoon haysan ogolaasho ma jiro qofkii employee-gana waa sidoo kale go'aan uu qaadan karo qofkani ma jiro isagoon ogeysiin qofka uu shaqaynayay qofka sidoo kalena employee-ga ama shaqaalahan waa sidoo kale wixii lagu sheego waxaan ahayn ma samayn karo qofkii employee-gana sidoo kale weliba performance baa lagu siiyaa hawshan kugu dira ma qabato sidii loogu talagal ma u qabato xilligii ma qabato mina waa qof xisaabsan saa laaligeed bishiina waxaa la siiyaa wax uu ku noolaado marka waa la soo wada mara micnaheedu kama soo horjeedo shakhsiyan anigu in micnaha qofka uu shaqeeyo laakiin waxaan leeyahay qofka micnaha shaqada ha u aado waayo aragtinimo laakiin ha isku dayo in isaga iyo ciddii kaloo team is heli karta inay u gudbaan in xirfadday marka ay fahmeen ama urursadeen inay micnaha bulshada ugu adeegaan ayagu shaqooyin abuuraan haddaynu fiirina marka tii haddaan ku soo noqonno marka maxaa sababi kara sida kaliya ee looga gudbi karo rat race ama looga gudbi karo xaaladda qofka inuu dependent ku noqdo mushaar oo culayskii soo fuulay mushaarka uu saaro waxa weeyaan halkan inuu abuuro business wax walba uu ahaan karaa ama share buu geli karaa ama ganacsi buu abuuri karaa ama retail buu samayn karaa ama dhul buu iibsan karaa ama team anything ama wuxuu samayn karaa in is urursadaan bay samayn karaa meel macallinka noqon karaan ama nursing bay wax kasta oo suurtagal ah waa inay la yimaadaan asset dakhliga marka assetkan ayaa wuxuu keenayaa inuu keeno income-kii dabooli lahaa expenses qofka waa inuu abuuraa asset team wax walba ku sameeya business share sameeya inuu ku fikiro sidii uga xoroobi lahaa inuu asaga meena active income uu la yimaado inuu asset la yimaado ganacsi intuu rabo ahaan kara xilligu rabo bilaabi kara intuu rabo ku bilaabi kara laakiin hadafku waa maxay income-kiisa waa inuusan ka imaan dhididkiisa taasa waxay keeni kartaa marka inuusan u baahnayn inuusan wax walba jarmaado tan baa marka waxaa la yidhahdaa passive income shaqaynaya oo kuu shaqaynaya xilligaad hurudid iyo xilligaad soo jeedid xilligaad baranaysid saas oo kale tan weeye marka tan keenaysa in qofka uu noqdo macna qof xor ah oo runtii bulshada wax kale u qaban kara ganacsigiisa noloshiisana meel saaray isla markaana dhaqankaana in wax la wada qabsado inuu u gudbo macna team ay samaystaan oo team ay noqdaan oo ganacsiga baad u wanaagsan marka conceptigaana passive income in loo gudbo baa wanaagsan income-kaaga inuu ka yimaado dhididkaaga inuu iska yimaado laakiin uu ka yimaado asset aad abuurtay kan weeye marka kan loo baahan yahay in loo gudbo haddaa fiirisaan marka qaybtan qofka ama shaqaaluu yahay ama waa self employed isagaa laga yaabaa marka inuu isla shaqadii isagaa taayirka wareejinaya isagaa jooga isagaa maqaaxidii fadhiya isagaa shaqaynaya qaybta waxaa la yidhahdaa waa active income dakhligiisa waxay ku xiran tahay intuu caafimaad qabo waxay ku xiran tahay inta isaga waqti hayo haddii uu xanuunsado wuu la xanuunsanaya dakhligiisa sababta isagiiba xanuunsanaya waa active income weeyaan laakiin qaybta loo baahay qofka inuu gudbo waa passive income in macna ganacsi uu shaqeeyo ganacsigana isaga uusan ku xirnayn hadafka marka la doonayo dhalinyarada iyo dhalinyarada jaamacadaha dhigtay dhammaan dadka shaqeeya oo kale waa sidai uga soo gudbi lahaayeen active-ka u iman lahaayeen passive-ka dabcan marka doodeen ama topigeen waa intaa sidee looga soo gudbi karaa inaad subax walba jarmaadid isla markaa micnaha muxuu ahaa aad noqotid adigu shaqo abuuran noqotid intaad shaqaale ahaan lahayd shaqaale inaad noqotid waa muhiim aad bay muhiim tahay shaqaale aad noqotid laakiin waa inaad ku fikirta inaad ka gudubtid markaa waa aragtid inaad fiican ka heshid muxuu yahay marka definition entrepreneurka waa qof setup gareeya ganacsi ama ganacsiyo qaadanayana riski financial ah isagoo rajaynaya profit isagoo rajaynaya wuxuu qaadanayaa riski tan weeye marka qofka lagu sheegay entrepreneurka ah waa isla fiirinaynaa marka exactly waxa loola jeedo entrepreneurka qofka ah runtii dunida si kale u arkaa xataa meelaha ay ka jiraan crisiska waxaa laga yaabaa inuu ka dhex arko fursado qofka entrepreneur maskaxdiisa markay tahay mar walba wuxuu fiirinayaa baahida jirta maxay tahay magaaladan maxaa looga baahan yahay iskuulkan maxaa looga baahan yahay jidkan maxaa looga baahan yahay mar walba wuxuu arkayaa fursad marka siduu dunida u arka mar walba way ka duwan tahay sida kale
tan waa ka gudbi doonaa maxaa loo baahan yahay marka haddaad rabto inaad noqoto entrepreneur waxa ugu muhiimsan inaad heshid waxa la yidhahdo niche waa maxay waa meel bannaan area bannaan meel aan la buuxin ama waa meel la buuxiyey laakiin adeegii saxda uu ka maqan yahay value dheeri baa ka maqan ganacsi baa arkaysaa furan cid ay bilowday laakiin aysan dhamaystirin adeeg badan baa ka maqan marka waa niche weeyaan in adeega ku soo niche marka waa meel bannaan waa fursad bannaan inay kuu muuqato maskaxdana u train garaysid inaad mar walba arki kartid fursada waa isla fiirin doonaa tusaale kale markaad aragtid meel bannaan ama niche markaad aragtid marka ugu horeysa awood waxaa saartaa segmentiga muxuu yahay area xagee qusaysaa marka dambe waxaad samaynaysaa focus suuragal ma inaad tiraahdo adeeg baan keenaya cid walba ka faa'iido dhalinyaradii waa segmenti dumarka waa segmenti age groupkii waa segmenti beeraha saasay u kala duwan yihiin marka waa inaad fiirisaa focuskaaga muxuu yahay ma dhalinyara ma ardayba ma shaqaalaha xagee u yahay macnaa cidda aad rabtid inaad siisid adeega kadib waxaad gashanaysaa customerka marna mistake u badan dhaca waxa weeyaan qofka inuu yiraahdo badeecadan ama shaygan haddaad sameeyo waan hubaa in laga gadanayo waana mistake ugu badan ay dhacdo weeyaan assumption baa la yiraahdaa waxyaalaha ugu badan ku burburan ganacsiga way ila tahay marka intaad oran way ila tahay waa inaad samaysaa customer well-being mana waa inaad customerkii kabihiisa aad gashataa oo tiraahdo ma gadan lahaa yani waxa intaa kadib waa inaad marka product yar samaysaa ama adeeg yar marka waxaa la yiraahdaa minimum viable product wax yar baad samaynaysaa waxaa ku tijaabinaysaa marka qof ama saaxiibada ama ehelka dadka kugu sakeeya validation baad samaynaysaa ayagaa u dhiibaysaa waxbaad soo saartay wax yaroo fudud soo qaad waxun isleedahay macnaha kasoo qaad raashin nooc kale baad samaysay iyagaad u geynaysaa iibsada leedahay dhadhamiyaa leedahay ra'yigiina siiya cusbada ku badan xaalad sidee bay tahay iyagaa validate garaynaya mar alla markii la validate gareeyo markaasaa launch garaynaysaa ganacsiga ama adeegaaga intaa marka waxaa loo samaynaya waa maxay qofka marka hore inuu khasaaro ku dhicin mistake badan dhac waa maxay qof baa oranaya sax bay ila muuqataa arrinkan oo arrin la gadanayo haddii meesha la geeyo waa aad baa loo gadanayaa lacag buu raadin dayn buu raadin wixii buu samayn waa damba ka war helaya marka waxayna shaqaynay marka sidaysa u dhicin waa inaad horta samaysaa focus customerka waa inaad asaga ka fikirta waa maxaa ku qasbaya inuu gato waxa aragto in la gado asagoo yar baad samaynaysaa minimum viable product shay aad u yar oo khasaaro weyn gaarsiinaya kabacdi waxaad ku samaynaysaa validation cid aad ku kalsoon tahay baa u dhiibaysaa alaabtii kasoo qaad jaakadaad samaysa qof aad ku kalsoon tahay leeda gasho xiro bal fiirsi muuqanayaan wax kasta waxaad u dhiibaysaa validation baad samaynaysaa mar alla markii la aqbalo oo information uu kugu soo noqdo adigii oo hesho datadii markaasaa la jagaraynaysaa tan marka waa niche-ka iyo siyaabaha keeni karaa inaad aragtid fursaddii iyo inaad fursaddii aan dayicin haddii aad fiirisid marka dhalinyarada hadda runtii joogto fursadan caadi ah bay haystaan hadda waxaa la soo gaaray xilli runtii sharing economy wax la yiraahdo loo soo gudbay waa laga soo gudbay xataa yani markii hore warshadaha la sameeyo tirada badan iyo hadda waayahan dambe aad waxa u awood badan oo ganacsiga adduunka iyo dhaqaalaha adduunka boqolkiiba 80 in badan waa service weeyaan markaas la fiirina bal dadyooga niche-ka helay dadyooga fursadaha helay ee ka faa'iiday tusaale oo kale haddaan fiirino waa la wada garanaya umeynaya Airbnb waa shirkad weeyaan dad badan baa la socda dad galbeedka aad bay ula socdaan shirkadda wax kale ma samayso waa shirkadda hotel chain-ka ugu weyn bay leedahay marka la fiiriyo meena hotelada ugu badan bay leedahay laakiin in reality one single hotel ma leh waxay samaysaa oo kaliya wax kale ma aha guryaha qofka uu ka maqan yahay guri baad leedahay kasoo qad billaah waad ka tagtay bil baa ka maqnaanaysaa gurigaagay kugu kireynayaan way hagaajinayaan way kireynayaan inta ka maqan gurigaagii iyaguna waxbay ka helayaan qof kale imanaya qof kale degaya ayagu marka waxa weeye intaas oo milyan guriga kireynayaan wax hotel ay leeyihiin ma jirto haddaad fiirisaan revenue-gii 4 bilyan oo dollar baa soo xarootay 2019 haddaad fiirisana one single hotel ma laha dadyow kale guryahooda ay ka maqan yihiin bil 2 bil 3 bil unbay u kireynayeen dadkiina u faa'iideynayeen iyaguna faa'iideysanayeen sidoo kale haddaad fiirisid uberka oo la garanaysa hadda dhaweeya Soomaalida u taqaanaa exactly waa biggest tax company weeyaan hal taxina ma leh 2019 budgetkooda wuxuu 4.4 billion sidoo kale haddaad fiirisid Turo waa shirkad kale aydan waxay kiraysaa bawrtii kiraysaa exactly aydan hal gaari ma laha wax kale maaha waa sida uberka oo kale weey kan laakiin gaarigiiba lagaa kireynaya gaarigu lagu qaadimaya qofka gaarigiisa safar buu aadi lahaa gaarigu dhigayaa
cid kale laga kireynaya intuu maqan yahay gaarigiis baa la kiraysa exactly waa sidii gurigii oo kale weeyaan haddaan fiiriso budgetkoodana sanadkii hadda 2019 wuxuu ahaa 67.3 billion عفوا sidoo kale haddaa fiirisid shirkaddan Just Park ayaguna fikrad kale la yimaadeen waxay yiraahdeen qof baa laga yaabaa inuu u shaqo tago meel u jirta 50 kilomitir ama 100 kilomitir gurigiisii marka waxaa laga yaabaa inuu lahaa parkingkii waxay leeyihiin adigu guri waa ka maqan tahay intaas saacadood baa ka maqan tahay parkingan kireen sababta qof kale laga yaabaa areada aad degan tahay inuu shaqo u yimaado gaariga meel walba iska jiro marka qofkan markuu ka tago gurigiisii ayay wuxuu kireenayaan parkingkiisa iyaguna one single parking ma leh 2019kii mina profitku intaas u ahaa haddaa fiiriso dhammaantood waa sharing economy hal shay ay leeyihin ma jirto laakiin dadkii way kala faa'iideynayeen iyaguna ka faa'iideysanayeen shirkaddan TaskRabbit runtii waa fursad ilaa hadda Soomaaliya laga heli garin karo iyaguna wax kale ma sameeyaan waa labor sharing muxuu ahaa shaqaaladu baa la qaybinayaa tusaale kale waxaa dhici karta maanta aan halkan jooga inaan u baahdo qof ii xirxira talaagada baa iga hadlawda qof ii fiiran u baahdo marka meel aan waca ma jirto marka shirkadda wax kale ma samaynayso qofka shirkaddu uu wacaya shirkadda isla markii waxay u diiwaan gashan intaasoo qofood qofkii talaagada qaabilsanaa bay u diraysa waxay leedahay gurigaa tag talaagada sidaas soo farsamaya anugu shirkadda lacagta waxaan u shubayaa shirkadda lacagta qayb bay kala haraysaa qaybna waxay siinaysaa qofkii shaqaalaha saddexdii qofoodba kii loo sameynayay iyo kii sameynayay iyo shirkaddii bay faa'iiday qabaan marka sanadkii hadda 2019 budgetkeedii beejkoodan ka soo qaadnay waa 25 million oo profit ah ayse ku jira lacagta ay bixisay iyo dadkii ay meelaha hawsha qabanayay haddaa fiirisid marka yaa noqon kara marka entrepreneur asla fiirino dadka qaarkood waxaa laga yaabaa in siraay entrepreneur waxaa noqon kara qof yani gooni ah marka su-aasha u baahan waxay tahay si loo noqdo successful entrepreneur qof ganacsi yani ku guulaysta saad u noqotid ma dhaba su'aalahan soo socda inaad ka soo baxday jaamacad ma dhaba yani inaad extreme very smart yani qof dadku wax dheer ma dhaba yani inaad dhaqaale badan haysto ku bilaawd meena seebeyta yani aan isla fiirina marka qofka noqonaya entrepreneurka ma looga baahan yahay qaybahan oo dhan haddaan fiirino hadda dadyowga billionaireska ahaa ee marka ganacsiga noqday ee jaamacadaha ka daatay qaar badan baa laga yaabaa garataan Bill Gates waa garanaysaa Microsoft wanaka garanaysaan weeyaan jaamacadda Harvard uu ka haray wuxuu nooga haray meelaha wax kale ma meelaha ganacsiga inuu sii horumariyo kuma xirna marka qofka inuu jaamacad ka soo qalin jabiyo si uu bilaabo ganacsi sidoo kale haddaa fiirisaan Dell waa garanaysaan waa ninkii sameeyay kombiyuutarada Dell isagana wuxuu drop garay jaamacadda Texas ninkan waa wada garanaysaan dabcan aqoon fiican baa loo wada leeyahay sidoo kale ninkan waa garanaysaan Steve Jobs Apple telefoonada wada isticmaalna iyo shirkaddan Apple ninkii soo saaray weeyaan qasaab uu ahaa isagana drop outs buu ahaa haddaa fiirisaan ninkan waa garanaysaan waa Twitter sanadkiisa drop out buu ahaa nina inta sababta u leeyahay micnaheedu maaha jaamacada isaga hara laakiin meeshan u socdo waxa weeyaan inaysan xiriir badan ka dhaxayn haddaa jaamacadaha dhigataan oo wadaan meena waad samayn kartaa laakiin haddaad jaamacad fursad u helin micnaheedu ma aha inaad dad ka hooseysid ama inaadan la iman karin aragti ganacsi sidoo kale haddaa fiirisid ninkii la sameeyey Microsoft weeyaan shirkadda Oracle Larry Ellison waa caan dad aad buu micnaha loola socdaa shirkadda Oracle oo shirkadda ugu weyn micnaha samaysa database-yada ninkan waa garanaysa isaga naftigiisa waa baalka hadda wada isticmaashaan xasan naftiisa drop out buu ahaa dhammaantood intaa meesha kusoo wada sheegnay oo dhan wax kale ma ahayn meelaha waxaa weeyaan inaysan qofka ku xirnayn backgroundkiisii hore in micnaha fursad uusan soo helin waxbarasho aysan ku xirnayn yana ganacsigan oo micnaha qofka inuu sameeyo in badan waxay ku xiran tahay qofka kartidiisa iyo inuu fahmo micnaha sida loo sameeyo ganacsiga isku daygaas iyo attitude ku jira micnaha qalbigiisa hadduu aaminsan yahay laakiin waxba ma samayn karo hadduu aaminsan yahay qof runtii waxba ma samayn karo marka inta qaybta waxaan soo qaadan waxa weeyaan inaysan ganacsiga ku xirnayn specific group dad khaas ah ama jaamacado khaas ah ama yani grade shahaado khaas inaysan ku xirnayn qofka isaga isbari kara wax isagana nimankan ayaga waxa qiyagan wax isbaray dabcan waxaa laga yaabaa isaga tiimka ay samaysteen fursado badan baa jiray laakiin waa fursado dhalinyaradu ay haystaan weeyaan hadda ay samayn karaan
haddii aan usoo gudubno qaybtan kale muxuu yahay farqi u dhexeeya ideada iyo opportunity dad badan in badan isku qaldan siiba dhalinyaradu waxaa laga yaabaa inuu yiraahdo in fikrad baan hayaa waxaana rabaa in la maalgeliyo markaad tiraahdo fikrad wax weyn ma aha fikradda ma u bedeli kartaa fursad markaasaa laga yaabaa inuu yiraahdo muxuu yahay farqi ugu dhexeeya waa isla fiirinaynaa fikraddu haddaad fiiriso sideeda wax value ay leedahay male just waa dream qof investor ah ama maalgelin aad u timaadid ma oran kartid fikrad baan hayaa oo macnaha marka maalgeli fikrad wax walba ay ahaan kartaa laakiin waxa ugu muhiimsan loo baahan yahay waa inaad u beddeshid value waa inaad la timaadid macnaha wax la cabiri karo oran kartid shaygan hadda halkan geliyo waan tijaabiyey customerka waan ku tijaabiyey waxaan sameeyey macnaha minimum viable product waan sameeyey validation baan ku sameeyey natiijadan baan helay waa inaad isticmaali karto wax meesha raba la cabiri karo taas waxa ka gali karta investors marka farqiga u dhaxeeya waxa weeyaan idea waa idea laakiin waa inaad u bedeli kartaa opportunity waxaa dhici karta mararka qaar inaad tiraahdo okay waxaan u baahanahay toolkii la isticmaali lahaa ama aaladii la isticmaali lahaa si aan fikrad ugu bedelo fursad isla fiirino qaybtan haddaa aragtaan waxaa la yidhahdaa canvas waa meelo badan baa adduunka lagu sharaxaa in badan aragtaan waa laga yaabaa canvaska runtii qof uma baahna hadda business plan yani dhowr boqoloo page inaa qof investor u keento uma baahna hadda waayahan dambe waxaa laga inuu kiraahdo business modelkii canvaska ii keen inta qodob ku jiro waa akhrinaya hadduu ku qancin wuxuu ku leeyahay ma soconaya businesskaaga haddaa mid kamid a fiirisid waxaa ku qoran kaba soo qaado kana kale value propositionka waxa aad keentay qiimaha ay leeyihiin ee customerka u leeyihiin muxuu yahay problemkii xalinayaan waa wax fiican kaliya maaha problemkaasaa jiray shaygaaban keenay shaygaana xalinaya problemka kaasaa waxay leedahay value wax walba ahaado value propositionka marka aad keenaysid problemka aad xalinaysid muxuu yahay kaa waa inay caddahay wax la taaban kara waa inuu yahay tan kale waa inay muuqataa tirada resourceka haystiyaa wey yaa kula shaqaynaya ma adigiiba farsamada yaqaan ma team baad haysataa ma haysta dadkii kala duwan hawsha sameynayay muxuu yahay kii resourceka haysatid hawshan kula qaban kara activity-gaad qabanaysid muxuu yahay si aad u samaysid meena value propositionka muxuu kaaga baahan yahay activity-da qabanaysa ugu muhiimsan maxay yihiin sidoo kale yaa kula partner ma qof keligii meel taagan baad mise partners baa leedahay xiriirka idinkala dhexeeya adiga customerkaaga muxuu yahay waa maxay customerkaad tiigsanaysid segmentiga u socotid waa maxay ila productigan cid walba ma dabooli karta baahideeda yuu yahay dadka aad doonaysid inaad xalisid baahidooda khaaska ah muxuu yahay dumarka ma ragga da-adee weeyaan maxay ka shaqeeyaan muxuu yahay dadka xalinaysa problemka wax la taaban karo waa loo baahan yahay dadka iyo customerka channelkee u maraysaa productka marka rabta inaad gadid qaabkee u gadaysaa wadadee u maraysaa ma online-kaa u gadaysaa ma siyaabo kale u gadaysaa ma fees kale waa u geynaysaa ma baqaarad furaysaa qaabkee channelka u maraysa muxuu yahay cost structure-ka value-gan aad xalinaysid dadku intee marka la fiiriyo channelkaaga iyo customerka iyo marketingkaaga waxyaalahaas oo kale cost structure-kaaga muxuu yahay qiimaha kaaga bixi kara waxa geli kara muxuu yahay wax qiimo laba laga yaabaa laakiin suuqa la keeni kara just because of aad u qaali u yahay muxuu yahay marka cost structure-ka kuu diyaarsan waxaan iyo waxa macquul ah aad ku keeni karta qiimahan muxuu yahay aad ku yareyn kartid iyo review stream xagee wax kaaga imanaya ila marka investor aan hayad ii keentid meesha wax ka imanaya waa inay muuqataa shayga intaas uu ku baxaya tilaabooyinka aan qaadayo waa intaas partnerkaas baan leeyahay problemka saxda buu xalinaya channelka baan u maraya customerkeena waa noocaas inta haddaan sameeyana lacagtu waxay ka iman sidaasay ku imanaysaa streamkaas qaybtan ayaa wuxuu yahay ideadii qaybtii u bedeli lahayd fursadda haddii micnaha aad soo qortid yani aad soo dhoodhoobtid material tira badan oo dhowr boqol oo page business plan waxyaalahaas oo soo qurxisid cid kaa qaadanaysa waa inaad daamala qofku wuxuu ku leeyahay ii keen canvaskaas one single page haddaa ku qancin weysid waxa weeye wax shaqaynaya ma aha ta kale markii fikradda ay tahay fikrad kaa degtay oo si fiican ugu qanacsan tahay hal page ka yar baa kusoo koobi kartaa fikraddii waxaan u malaynaya waa layla socda waan rajeynaya shirkaddan soo fiirinay markii dhaweyd oo laborka samaynaysay waa kana canvaskeeda exactly sidoo kale u isticmaashaa canvaska kii partnerkii kii activity-gii resource-ka isticmaalayaan problemka rasmiga ay xalinayaan haddaa akhriso waa arkaysaa problem rasmiga ay xalinayaan
xiriirka customerkii ay leeyihiin wadaday u marayaan nooca customerkii tiigsanayaan iyo dakhliga meeshuu ka imanaya iyo costigooda marka one single business model canvas ayaa in badan wuxuu fududayn karaa aidiyadaada inuu u bedelo fursad taasaa soo dhaweyn karta oran karta halkan fursad baa ku jirta markaas aad u sii gudbi kartaa marka fursadda inaad xaqiijisid marka u dambayso waxaa laga yaabaa haddaad shirkad yar samaysaan ama isku day inaad samaysaan inaad micnaha naftiina ka run sheegtaan yani honestly inaad u dhaqantaan oo micnaha iswada analysis inaad samaysaan waxyaalo waxaa jirta aad ku liidaysid baa jira aqoon aad u lahayn inaad naftaada iyo tiimkiin iyo ciddii wada shaqaynaysa ka war doontaan oo tiraa waxaas waa ku liidanaa waxaana waa ku wanaagsannahay marka iswada analysiska wax kale ma aha meelo badan baad ku aragteen waa dacfiga haysta organizationka ama teamkiina ama ciddayda ka maqan ama cidda raadinaysaan ama tabartiina inaad u bedeli kartaan strength awood u bedeli kartaan oran yaa ku quweyna yaa ku soo darnaa teamka maxaa inaga maqan may waxaan u baahnaa daraasad dheer inaan samayno oo waxaan wax ka fahano oo aan akhrino marka weaknesskiini aha waxaan wax ka garanayn ayaa u bedelaysaan strength haddii organization sidii oo kale strengthkaas ayaad waxay noqonaysaa marka inaad kaga faa'iidaystaan fursadaha jira isla markaana aad kaga hortagtaan wax alla wixii trade ah marka SWOT analysiskan waa inuu ahaada very simple waa inuu ahaada takallana waa inuu honest ahaada wax daacada oo waxaadan garanayn ma garanayn inaad tirahdaan weaknesskiina aad tilmaantaan isla markaana aad si toos u abaartaan sidoo kale waxaan kusoo gabagabeynayaa inaad ku bilowdaan buugtan runtii buug badan baa jirta kor soo qaaday dhalinyarada fikradahooda buugtan haddii la yiraahdo muxuu ahaa محمد عبد الستار ما وصل دير الدنا دي أسئلة PDF يا عد وباهن فيسبوك وسوي دي كده يتكلم حسو دي بدنا إن هيئة شركة ده بشيء ناقل عبد الستار بوقت أنا هاد رئيس كم أبوك ير وما بدنا عاد بويري هاي كان واسك بيسك مع قف دورة وسوق قادم وقرنا يعني مع دكتور يصير له رقمه أول حاجة كان يا هاي effective people كان وابوك رنتيسك باكجراوند بوق ugu muhiimsan waa buugan lean startup buugan waxaan kula talin lahaa qofka intuusan ganacsi bilaabin inuu akhriyo buugan almost waa must read book weeyaan waxaan ka soo sheekeyn oo dhan asaga sabab ah waa waxa keeni kara startup baa samaynaysa laakiin inuu lean ahaada waa maxay inaad ku soo boodin waxaadan validation ku samayna aad hubina inaad aadan isticmaalin aadan dad hantidooda soo qaadad god ku shubin aad wada oran saxib ila muuqata aweyaan buugtaasna dool yara waan soo diri doonaa aad iyo aad baa idinka mahad celin doonaa